السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمها بدنا كحرين كنال كان يوتيوب كايدين شري channel isku soo naqad wanaagsan yarti kala xiisa leh doonaya halkan inaan kusoo gudbino barnaamijyadeeni caafimaadka ee channel ka bixi jiray ee bulshada markaa kula wadaagi jirnay waxyaalaha caafimaadkooda markaa ay ilaashadaan iyo dhibaatada u keenaya iska ilaaliyaan inta mawduucan aan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay sigaarka iyo dhibaatooyinka markaa laga dhaxlo markaa waxaynii hayaa fursad sigaarka la iskaga deyn karo sigaarka uga jogsan karti oo maanta kula gudboon ayaa inoo hayaa halkan markaa aan kusoo gudbin doonaa tan sharaxin markaa sida sigaarka dayn lahayd iyo fursada waxaan ka codsanaynaa channelka inaad ku caawiso subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta page Facebook-ga Danjire channel ayaa ku qoran halkaas uu ka soo bixi doonaa like-ta iyo following-ta sayna ku soo cimaamada soo gaaraan markaa walaalaha kalena aad gaarsiisay markaa ka cabanaya maanta sigaarku dhibaatooyinka ku hayo awalan sigaarku muxuu keenaa sigaarku wuxuu keenaa fayrasaad baa ku jira bacteria ayaa ku jirta aad iyo aad fara badan wadnaha dhibaato fara badan ayuu ku sameeyaa oo aad iyo aad wadnaha markaa qofka bini'aadanka ay cabba sigaarkan wadnihiisu markaa xanuuno fara badan ayuu ku sababa u keenaa waxyaalaha kale oo sababa waxaa ka mid ah tuumbooyinkan ay soo maraan hawada ka qaadana markaa hawada iyadana inuu xidho oo dhibaato ku keeno dad fara badan oo ku nool maanta halkeenan ama caalamka ku nool waxay aad iyo aad markaa ay ugu dhiban yihiin siday markaa hawadii ilaahay qofka bini'aadanka inuu qaato ugu talagalay ay qaadan kara laayaan oo oxygen ay u baahan yihiin iyaga ayaana soo sababay inay markaa dhibaatadaas ay qofkaas ku dhacdo oo sigaarku wuxuu ka mid yahay waxa qofka noloshiisa dila dhan walba markaa laga eego waxyaalaha uu sigaarku dila waxaa ka mid ah ilkaha ayuu dilaa wuxuu dilaa oo kale qofka markaa jismigiisa ayuu dilaa dhiigga cad ee unugyada ayuu dilaa dhibaatooyin iyo suna fara badan ayaa sigaarka ku jira qofka markaa bini'aadanka u sababo sidee haddaba la isaga dayn karaa sigaarka waxaa sigaarka isaga dayn kartaa maanta waxaan ku jirnaa xilligii bishii Ramadaan laga yaabaa qofku inuu maalintii dhan sooman yahay uu sigaar wax sigaar cabin haddii maalintii oo dhan aad soomantahay wax sigaar aad cabin waxa fudud markaa in iska daysiyo ayaa fudud xilliga lagaga faa'iideysan karo oo jaaniskaas uu markaa furan yahay waxa kamid ah Ramadaanta qofku inuu markaa sigaarka iska dayo qofka islaamka oo hadhow markaa uga kaaftoomi karo maadaama maalintii oo dhan qofkaas uu sigaar cabin uu ka kaaftoomay markaa xilliga uu afuro inuu cabin ayaa aad iyo aad wanaagsan laakiin qofku xilliga afurka hadduu sigaar cabo oo ku bilaabo xanuunadii iyo fayrasaadkii wixii halkii inbuu ka qaadanaya dhibaatana way u sababaysaa xilliga ugu fiican ee qofku fursadda haysto waa xilligaas markaa walaalaha fursadda ayaan la wadaagay wayna markaa sigaarka isay isaga joojin lahaayeen ay markaa ku dadaalaan oo iska ilaaliyaan sigaarku dhibaatooyinka iyo xanuunadaas aan soo sheegnay ayaa laga qaadaa qofkii kale aad gaarsiin kartay walaalka isaguna ka faa'iideysan kara gaarsii intaan ku kulmi doono video kan lamida waxayna kaga tagay fi amaanillah